Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadii daawayaal meel daafaca caalamka aad ka kala joogtaan. Maanta waxaan rabaa inaan aynu sii barano taxanihii Python, taasoo maanta aynu ku eegi doono functionka loo yaqaano input function. Waa maxay input function? Maxaa loo isticmaalaa? Muxuu qabtaa? Sideenu isticmaalaa? Muxuu iga caawin karayaa? Input function haddaynu si fudud aynu uga jawaabno, waxa weeye waa function ku saamaxaya ama userka in u saamaxaya in uu input geliyo. Input yani waxa weeye waa waxba la gelinaya in uu input geliyo ayuu userka u saamaxaya. Userku it could be aniga, it could be adiga, it could be anyone. qof kasta oo kale oo isticmaalaya programka aad qortay. Yani waxa weeye waa function baan ku yiri, function kaasi oo u saamaxaya userka in uu wax gelin karo. It means programkana u saamaxaya in aad userka aad weydiin karto informationkiisa, like magaca, da'daada waa imisa, age, xagaad iskuulka dhigataa, jaamacadeed ka baxday, waxaasoo dhanba ayuu inoo saamaxaya inaynu userka aynu weydiin karno informationkiisa. Dabeetana aynu informationka u geliyay aynu ku kaydsan karno meel aynu doonno. Hadhowtan aynu awood u yeelan karno inaynu userka tusno informationkii ama daatooyinkii uu geliyay programka markii uu isticmaalayay. Okay, haddaba input function sidee buu u shaqeeyaa? Input function just waxa weeye waxaad qori kartaa adigoo input ka qoray, dabeetana promptiga yani waxa weeye waa dhambaalka aad rabto inuu arko userka aad raaciso, aad tiraahdo fadlan halkan geli magacaaga. labadaba waad samayn kartaa, iyo inaad bilaa prompt aad ku isticmaasho oo aad magaranaysaa isoo sheega aad tiraahdo aad tas su-aal caadiya aad weydiin karto, aad odhan karto what's your name. kabacdi markuu userku geliyo aad ku magaranaysaa isoo sheeg assign garayn karto ama another variable kale aad u pass garayn karto si uu kugu kaydiyo, ama isla functionkii aad ku dhisan karto oo isla functionka aad print raacin karto oo aad dibadda aad usoo saari karto wixii uu geliyay userku. bal aynu aragno iyadoo as a practical. waxaan rabaa in aan qoro programkaasoo weydiinaya ardayga magaciisa iyo da'diisa. Okay, waxaan leeyahay print, waxaan leeyahay fadlan. Okay, fadlan geli macluumaadkaaga. Okay, waxaan leeyahay input functionkii baan oranaya. waxaan leeyahay fadlan magaca. maxaan ku yidhi input functionku yani wuxuu ii saamaxayaa in aan userka aan qaban karo ama aan u saamixi karo inuu userku uu gelin karo macluumaadkiisa. Okay, fadlan magaca. waxaan qorayaa another input. waxaan leeyahay fadlan iskuulkeed dhigataa. bal hadda u fiirso. Okay, si aynu u aragno oo aynaynu marka aynu u assign garayno isoo sheeg variable. waxaan leeyahay waxaad igu assign garaysaa variable la yidhahdo name, kan igu assign garee, kanna variable la yidhahdo school igu assign garee. It means waxaan u pass garanayaa userka functionkaas fadlan magaca la yidhahdo iyo fadlan iskuulka dhigataa. kabacdi markaa labadaa shay wixii uu kala geliyo jawaabahooga wuxuu igu assign garaynayaa variableka name la yidhaha iyo variableka la yidhahdo school. si aan u arko markaa wixii lagu assign gareeyay waa in yidhahdo print. waxaad isoo saartaa name plus school. Okay, bal wixii uu geliyay sidii jawaabihii uu geliyay userku isoo saar. bal inaynu arki karnaa isku dayna. Alright, bal waan rangaranayaa, ila soco. muxuu ku yidhi fadlan magaca. waxaan leeyahay Aziz baa la magacayga.
wuxuu ku yidhi fadlan iskuulkeed dhigataa. waxaan leeyahay waxaan dhigtaa iskuul, waxaan odhanayaa alnuur. okay, wuxuu ku yidhi aziiz iyo alnuur. waynu sii hagaajin karnaa. waxaan leeyahay si aynu si fiican aynu ugu qorno. waxaan leeyahay magacaagu waa plus. okay, stringaas kasoo xidh plus. okay, another function kala ii samee. iskuulkaad dhigataana iskuulkaaguna waa okay plus. okay, aynu dib u rangarayno. okay, fadlan magacaa waxaan leeyahay caasha baa la idhahdaa, aba kasoo qaad. waxaan leeyahay fadlan iskuulka dhigataa, waxaan leeyahay ubaya. waxaan odhanayaa magacaagu waa caasha, iskuulkaaguna waa ubaya. halkaasi yacni si aynu u aragno inaynu magaranaysa ay soo sheegayno. magacaagu waa plus iskuulkaagu. okay, alright, si aynu u aragno magaranaysa ay soo sheeg siro fiican waa inaynu space u sameynaa. okay, magacu waa cali, magaciisa ninkan waa cali, waxa uu dhigtaa iskuul la yidhaahdo dayaxabadhe. okay, magacaagu waa cali, iskuulkaaguna waa dayaxa. it means yani waxaynu isticmaalaa input functionkaasoo u sahlaya userka in uu geliyo informationkiisa, inagana inuu sahlaya in aynu magaranaysa ay soo sheeg aynu userka weydiin karno su-aalo, userkuna uu awood u yeelan karo in uu su-aalaha inaga jawaabo. isla markaana aynu ku kaydsan karno function ka la yidhahdo input, isla markaana aynu usii assign garayn karno ama variable la yidhahdo school ama any variable markaas aynu u assign garayn karno. ma fahantay? it means waa userka iyo programka oo wada hadlaya. programka oo leh magacaagu waa maxay, hebel, da-daadu waa intahay, da-daadu waa intaas, iskuulka dhigata waa xagee, waa xagga. dabeeto waxala wixii uu kasoo helay jawaabihii wuxuu dib ugu soo celinaya markaa input functionka. sidaa waa inaad u kala fahantaa. alright, maanta intaas insha allah kusoo gabagabeynayaa. insha allah waxaynu ballan qaadnay inaynu ka dhigno taxane barnaamijkeenan ku baro Python adigo guraaga jooga insha allah. haddii aad rabto inaad intaa iyo inka badan kasii faa'iidsatay insha allah isha ku hay channelkan. waxaana ku leeyahay kiblaanin insha allah, day by day insha allah waxaan noqon doontaa Python advanced insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadii daawayaal meel wadaafa caalamka aad ka kala joogtaan. maanta waxaan rabaa aynu sii barano taxanahani Python, taasoo maanta aynu ku eegi doono function kale